Dawada Fountain of Life oo ah dawo xanuuna badan ka dawa ayaa xalay lagu soo bandhigay magaalada Hargaysa. Dawadan oo lagu sanciyay dalka Canada waxa Soomaalida soo gaarsiiyay Raxma Maxamuud Muuse. Ugu horeyn waxa madashii lagu soo bandhigay ka hadlay Raxma Maxamuud oo faahfaahin ka bixisay faa'iidooyinka dawadan, xanuunada loo adeegsan karo iyo waxyaabaha laga sameeyay. dawadan waxa sameeyay company ku yaala Canada oo la yiraahdo Opulence Global. Opulence markii hore wuxuu ku bilaabay 15 sano ka hor wuxuu ku bilaabay qaybta fashionka iyo skin care-ka oo ay kamid ahaayeen kreemada wajiga la marinayo. kreemadii markaa feedback ka soo noqday ayaa wuxuu ku noqday ninkii dhakhtarka ahaa u sameeyay uu weydiiyay xuri what is the secret waayo dadkii aad bay uga heleen kreemadii wuxuu u sheegay inuu ka sameeyay geed ka baxa Norway oo la yiraahdo Norwegian spruce tree oo ku iyo jiilal aan waxba noqonin geedkaasi wuxuu ku fiican yahay sadogtihiima markay geeduhu dadaan oo kale de way dhintaan oo waxba kama noolaadaan geedkii haduu damage yar gaadhay laakiin geedkaasi isaga isdaweeya halka laan ee ka xumaata isaga isdaweynaya ku iyo jiilalna wuxuu yahay geed dhammaystiran green ah oo cagaar ah oo waxba noqonaynin marka ninkii wuxuu weydiiyay maadaama oo dushii bilaadanka wixii ay marsanayeen aad de uu saa ka dhigay ma samayn kartaa wax inside kana isagana de jirkii wanaajinayo oo maaragtay de u fiican wuxuu yiri waan ka samayn karaa marka dawadan waxa jirtaa iyadu imaga 2 sano iyo badh dawadu waa dawo dhibca ah waxyaabaha faa'iidada u tahay waxa kamid ah dadka macaanka qaba dadka dhiigkarka qaba dadka kor xanuunka qaba markay qaataan dad badan oo qaatayba waxa jira laha body rash amba waxaynu xasaasiyada inagu u naqaano amba laha skin cancer oo ay ka daweysay runaantiin hadaba anigu markaan tayada ka hadlo in testimony-gayga idin ka sheekeeyo anigu waxaan lahaa gaas aad u xun gastric waxa dadku u yaqaanaan gaasta waliba waxaan u qaadan jiray kiniin ah in subaxii ilaahay keenaba aan cuno hal kiniin si aanan maalinta dhan u xanuunsanin hadda dawadan oo qaatay aad bay wax iga tartay idan ma oran karo maalintii ugu horreysay waxay tartay laakiin waxa ii tartay 7 days maalintan isticmaalay waan kaga raystay kiniin hadda ma qaato alxamdulillah rabbil caalamiin dhankeeda waxayna barnaamijka Zoom kaga qayb gashay munaasabada roodo cilmi oo ku sugan dalka Canada waxayna ka hadashay hababka ay dadku u heli karaan iyo sida ay dheef uga sameyn karaan waxayna sharaxaad dheeraad ah ka bixisay hababka dadku ay dawooyinkan dhaqaale uga sameyn karaan iyagoo oo ku shaqaysan kara isla markaasina si iibin kara iyagoo oo jooga guryahooda Ekraan Axmed oo ka mid ahaa dadka isticmaalay dawadan ayaa munaasabada ka hadashay waxayna ka sheekaysay habka ay ku heshay iyo isbedelka ay ku sameysay dawadani anigu waxaan ahay dadka ka qayb qaatay runtiina aad ay wax ugu tartay imka wada arkaysid markaan soo socday qof fiyow baan ahaa laakiin habeenkan uu imir raxmeen dawada ka soo doontay ilaa la kiciyo ama aan qof cuskado ma aan talaabsan karin sababtaas oo ahayd inkastoo joogii gaadhay lugto oo bari hore aan ka kufay halka xagasha seedahaas waxay noqdeen haddana markii aan dawadaas xayeysiiskeeda anigoon roodo aqoonin on roodo sorry aan aqoonin raxma ayaan online ka arkay family oo Europe joogan la hadlay waxay wali bahasha ma haynay bal waan soo raadinaynaa insha Allah ta'ala anyway haddana isla habeenka aan fariinta dirayay inaan roodo cilmi ayaan online ka ku arkay iyadoo soo dhigtay Facebook roodan toos la xiriiray waxay tiri insha Allah ta'ala inaan baa soo socota waana kula soo xiriisin doona sidii bay raxmi ku timi raxmi toos maanta timi way la soo hadashay walaal caynkaas dawadii caynka ahayd baan wadaa okay baan ku ori waxaad moodaysaa yacni dareenka aan ka qaatay raxmi inay ogeyd damqayga sarntu tahay isla habeenkiiba waan soo carray halkee jooda tilmaan waan ugu imi ma sha Allah tabarakallah laba xabaan ka qaatay lacagtu waxba ma tarto laakiin caafimaadkaaga qiimo badan way qofkaygii la kicinayay sometimes xamaamka de mar walba leeyma ag joogo doonaysa in la gaarsiiyo oo iskeed u socotay
alxamdulilah calaa kulli xaal wax ilaahay loogu mahadnaqo mar kasta kolley dadku isweydiinayaan productkan halka laga heli doono waxa laga heli doonaa insha Allah labadan hablood ee garab taagan Rooda Ismaaciil iyo Muna Aadan oo Hargeysa jooga insha Allah iyaga laga xiriiraya Axmed Saciid Xasan Axmed Shimaali Eryal TV Hargeysa